بسم الله الرحمن الرحيم. وحن كدارنيا مقع إلهي إن آن دولة goboleedka Hirshabelle sida cadnimo cadaaladnimo wadaniyadnimo danta qaranka aan ka hormari doono dinteena aniga gaarka aan ka hormari doono qaranka kuna dhaqmi doono dastuurka federaalka qaranka mid Hirshabelle برنامج كوكب سنة على العدالة فرض ولا يا إلا يا magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa maanta lagu dhaariyay golaha wasiirada oo ay dhawaan ansixiyeen mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle dhaarinta golaha wasiirada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowladda Hirshabelle ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka iyo qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle dhaarinta kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Hirshabelle Ismaan Bare Maxamed isagoo golaha wasiirada kula dardaarmay shaqo wanaag waxa uu sheegay in golaha wasiirada ay la xisaabtami doonaan marka dadka loo magacaabay wasiirada magacaabay sida yani shaqaysana ma noqon doontaa xeeloosaadkii iyo xukuumadda la xisaabtanka xukuumadda kamid ah waliba xeeloosaadkii waxaa ku qoran la xisaabtanka aqalka sare anaga doona waa la xisaabtamayna marka mar haddii la xisaabtamayo waa inaad ku fikirtaa xilka la diibi inuu yahay xil la xisaabtan inuu yahay madaxweynaha la xisaabtamaya baarlamaankana wasiirkii shaqadiisa gudan waayo waa la keena waa la xisaabtamaa ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha dowladdiisa sanadan 2017 ilaa 2020 samaynta iyo meelmarinta sharciga iyo istaraatiijiyadda tamarta iyo biyaha ee maamulka Hirshabelle tirakoob xog ururin iyo cilmi baaris joogto ah oo ku aadan tirada iyo tayada tamarta iyo biyaha uu leeyahay deegaanka maamulka Hirshabelle si loo yareeyo khasaaraha ka dhasha biyo yaraanta waxaa lala dagaalami doonaa lumidda khayraadka biyaha waxaana la hirgelin doonaa nidaamyo casri ah oo lagu kaydiyo biyaha uu ilaahay ku daaqo deegaankeeda sidoo kalena waxaa la hirgelin doonaa nidaamyo iyo shuruuc suurto gelinaya ka faa'iidaysiga tamarta laga helo dabaysha qorraxda iyo nooc kasta ee loo dhalin karo tamarta si loo daboolo baahida tamarta iyo biyaha ugu dambeynna loo gaarsiiyey ilaa heer tuulo waxaa la hirgelin doonaa nidaamyo iyo xeerar lagu hagayo laguna diidigelinayo hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya tamarta iyo biyaha xukuumaddu waxay ka shaqayn doontaa inay dadka ku dhaqan Hirshabelle helaan koronto jaban oo joogto ah oo gaarsiisan ilaa heer tuulo kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha himilada xukuumadda ay ku aadan kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha waa in dib loo soo celiyo shuruucdii beeraha kuwo cusubna la sameeyo lana meel maro in la abuuro lana tayeeyo iskaashatooyin beeraley ah oo ay shacabku leeyihiin in dib loo hagaajiyo kanaalada waraabinta beeraha lana sameeyo kuwo cusub si loo gaarsiiyo biyaha webiga meelaha ay bulshadu uga baahan tahay iyo si loo ballaariyo baaxadda dhulbeereedka deegaanka iyo kala duwanaanshaha dalagyada beeraha in laga haqabtiro beeralayda Hirshabelle qalabka beeraha iyo abuurka ayaa sareeya sidoo kalena la hirgeliyo shuruuc iyo xeerar suurto gelinaya in laga saaro beeralayda yaryarka ah laga soo saaro beeralayda yaryarka ah kuwa heli kara nolol wanaagsan Xamdi Awkar Xasan Xamdi Dol telefishinka caalamiga ee Somali News Jowhar.